بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن دمان با أرضيدا كحران كورسادان جافا Programming Language كورسو لوغو ترغلي أرضيدا ديغانيسا جامعادها iyo waliba kuwa ka qalin jabiyay jaamacadaha oo jecel inay luqadda Java ay meel shisha ka gaaraan. Class-kani ugu dambeeyay saddexaad waxaan ku soo qaadanay sida loo create gareeyo ama loo abuuro project-keeni koowaad ama program-keeni koowaad environment-ka aan isticmaali jirnay NetBeans. Class-kani afraad waxaan ku soo qaadanay waxyaabaha uu ka kooban yahay sida package-ka public-ka class-ka iyo waxyaabaha loo isticmaalay kadibna waxaanu ran gareynay ama create gareynay project-keeni koowaad maantadana waxaynu u geli doonaa waxyaabaha program walba hadduu ahaan lahaa C++ iyo waliba Java iyo dhammaanba luqadaha kala duwan markii laga reebo qaarkood sida Python oo meelo qaarkood ay ku kala duwnaan doonaan. Class-kani maanta waxaan qaadan doonaa component-iga uu ka kooban yahay ama waxyaabaha uu ka kooban yahay every project or every program oo Java kamid ah. Mid walba oo kamid ah programmadeeni waxa uu ka kooban yahay waxa lagu magacaabo Java tokens oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan Java oo ay kamid yihiin waxyaabaha sida caadiga loo isticmaalo variableska iyo waliba keywords-ka iyo waxaa kaloo intaa soo raaca constant-iga. mid walbana waa dul istaagi doonaa hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala karaali noqdo. intaa kadib waxaynu u gudageli doonaa ama operatorska intaa oo kala duwan uu ka koobnaan doonaa iyo wax lagu magacaabo functions wuxuu ka kooban doonaa kan marka waxay ka imaanaysaa C token ama Java token. maxaa la dhahaa Java tokens? waxaa la dhahaa waa midka ugu muhiimsan elementyada loo isticmaalo Java si loo create gareeyo program. يعني every element a single element oo ka tirsan programka gudihiisa ku dhex jira waxa lagu magacaabaa Java token. waxana sidoo kale lagu qeexabo inuu yahay the smallest individual element in a program or every program. يعني xarafka ugu yar ha ahaado comma ama dot ama curly brace, يعني wuxuu doona ahaado waxa lagu magacaabaa Java tokens. inta kadib Java tokenska waxaa loo kala qeybiyaa keyword, identifier, string, operator iyo constant. maxay raadayaan special characters. keywordka waxaa lagu qeexaa inuu yahay predefined or reserved keyword. macnaheedu yahay yani erey ama xaraf mar horeba qolada dhistay programyada dhistayba ay hore isticmaalkiisa iyo yani waxaa lagu magacaabaa built-in. waxaa lagu magacaabaa built-in yani qolada programka ama application ka sameysay aba hore usoo qeexday waxyaabaha loo isticmaalo. kuwana waxaa kamid ah waxaan arki doono oo ah int. waxaan kaloo loo isticmaalaa structure, if else, for, go to, size, يعني void. kuwaasoo dhan oo qolada software-ka dhistay soo hore usoo sheegtay ama built-in-ka programka ku ah waxaa lagu magacaabaa keyword. keywordna waxaa lahaa waa fixed element which cannot be changed. waa yani wax shay ah oon isbedelin oon si kalena aan loo isticmaalin. kan labaadna waxaa lagu magacaabaa identifier. identifierna waxaa lagu magacaabaa asagana waxaa loo isticmaalaa in variable lagu magacaabo.
ama function lagu magacaabo ama array lagu magacaabo ama structure lagu magacaabo waxyaabaha la mid ah. Identifier kana waxaa loogu isticmaalaa keyword wuxuuna ka kooban yahay uppercase letters iyo waliba lower case letters iyo sidoo kale maxay yiraahdaa digitska, yani waxyaabaha dhan oo kamid ah digitska sida maxay yiraahdaa uppercaseska, alphabetska, kuwaas oo dhan waxaa loo isticmaalaa which cannot be used keyword, yani wax kasto aanan keyword aan ahayn waxaa lagu magacaabo identifier. waxaana lagu aqoonsadaa shuruudihiisii waxaa kamid ah markii aragtid identifier inaad sameysid number 1 waa inuu ahaadaa ama uu ka bilaawdaa xaraf alphabet ama underscore waa inuu ka bilaawdaa, shardigiisa koowaad waaye. kadib wuxuu doona ha qaato numberkuu rabana ha raac, no problem. waxaana kamid ah markaa iraahdo bayaan kan hadda waxaa lagu magacaabaa waa identifier, ama markaan dhaho simply a yes comma b comma c, markaan dhaho a comma b comma c kana waxaa lagu magacaabaa waa identifier ama variable. midda labaadna qodobka labaad shardigu ah in identifier uu noqdo, shardigiisa labaad waxaa kamid ah waa in uusan number uusan ka bilaaban. bishardi alawal waa inuu ahaada alphabet, labaad waa inuu ahaado ama uusan ka bilaabanbo numbers waa inuusan ka bilaaban. qodobka saddexaad waa in caseka isticmaalaysid uusan ahaanin uppercase iyo lower case, yani hadduu uppercase aad isticmaashid waa inaadan marka labaadna aadan lower case aadan isticmaalin, because waxaa la dhahaa identifierka waxa weeyaan case sensitive. case sensitive-na micnihiisu wuxuu yahay yani waxa isticmaasha unbaad isticmaalaysaa. markaad isticmaashid kasoo qaad a aad dhahdid a wuxuu la mid yahay 10 markaad dhahdid aad raacisid hodhowdi ma dhihi kartid capital a, yani ma dhihi kartid, yani waa case sensitive. qodobka afraadna waxaa weeyaan calaamada comma waa inaysan ku dhex jirin labada xabo. kasoo qaad waxaa qoraysaa daryeel dar, haddaad comma gelisid ama aad dhahdid daryeel aad rabtaa comma gelisay yeelaa ku qortay, marka sidaan lama ogola, yani ma la dhihi karo waa identifier. qodobka shanaad waxaa weeyaan markaa isticmaalaysid identifierska waa in uusan keyword ahaanin. hadda keyword hadda ma dhihi kari, waxaa rabaa int identifier ma ahan waa keyword, waa inaadan wax keyword aadan u isticmaalin markii aad sameynaysid. qodobadaas iyo kuwo kaloo kasii badan ay jiraan, yani waa inuusan yani 31 uusan ka badan, yani shuruudihiis waa iska tira badan yihiin, laakiin aan ka gudubno. markaan galan waxaa imaanaynaa string. stringna waxaa la dhahaa always, yani waxaa loo represent gareeyaa wax lagu magacaabo array. aan filayo qaarkood inay soo arkeen, qaarkoodna weli aysan soo arkin, laakiin asagoo faahfaahsan darsigeeni xiga ama daraasaadkeeni xiga aan ku qaadan doonaa haddii eebaha awood lah naga helo. weli waxaan ku soconaa java tokenska. waxaa kamid ah operatorska. waxaa ayagana lagu qeexaa inay yihiin special symbols oo loo isticmaalo inay shaqo qabtaan. operatorska waxaa kamid ah calaamadaha additionka, maxaa yirahdaa subtractionka, multiplicationka, divisionka, kuwaas oo dhan waxaa lagu magacaabaa operatorska. waxayna kamid yihiin keywordka ama waxay kamid yihiin java tokenska. sidoo kale java tokenska waxaa kamid ah unary operator. unary operatorna waxaa lagu apply gareeyaa ama loo isticmaalaa single operand ama yani hal xabo. marka calaamadan waxaa lahaa operator, xarafkaana markuu caadi yahayna waxaa lahaa operand. marka labada xabo waa inaad si toos ah u kala fahantaa. kasoo qaad a plus plus waa operand. sidoo kale binary operator iyo qeybaha kale oo kala duwan dhammaantoodba.
ayagana sidoo kale waxaa ka mid ah classkan hore kusoo qaadanay comment line. ayagana comment line waxaa loo isticmaalaa meelihii aadan u baahnayn in programkaagii uu kaasoo dhexgalo. yacni waxaa qoraysaa 1+1 laakiin ma rabtid inaad sheegtid, waxaad leedahay kani waxa weeyaan calaamadiisaa siinaysaa, kadibna waxaa ku qoraysaa additionkana isagana wuxuu ka tarjumayaa labadan shay inuu addition sameyn doono laakiin aadan programkaagii uusan ku jiri doonin. sidoo kale Java tokenska waxaa ka mid ah special characters oo ayagana ay ka mid yihiin calaamadaha programkeenii hore kusoo qaadanay. Java tokenska sidoo kale waxaa ka mid ah wax lagu magacaabo special characters oo maxay yiraahdaa ayagana oo ay ka mid yihiin calaamadaha aan qoraalka aan ahayn sida curly bracketka, square bracketka iyo maxay yiraahdaa comma. maxay yiraahdaa kuwaas oo dhanna waxaa lagu magacaabaa calaamada hash, tied, period. calaamadahaas oo dhan ayagana waxay ka mid yihiin programmada gudahoodii oo micno badan u sameyn doona. marka dhammaantoodna waxaa lagu magacaabaa special characteristics. constantigana asagana waxa weeyaan waa daato oo fixed ah aan isbedelin. constantiga waa value as a variable which remains the same throughout the program. waxa weeyaan constantiga waa value ama waa qiimo oo loo assign gareeyo ama lagu sheego in variablekaas uu marna iska bedeli doonin ilaa programka inta gudaha la isticmaali doono oo la isticmaali doono. waxaana ka mid noqon doona yani kasoo qaad magac ama name is equal Ahmed, yani ama string name Ahmed, string name Muhammad. kaasna markaad ama a is equal 10 markaad dhahayd asagana waxaa lagu magacaabaa constant. wuxuu qeyb weyn ka yahay isticmaalka tokenska. cashirkeeni afraadna asagana halka unbaa kusoo koobi doonaa. darsigani shanaad waxaynu si toos ah u qaadan doonaa haddii eebaha awoodda leh laga helo. programyadii quseeyey javaha waxaynu ka hormari doonaa sida programyada additionka, multiplicationka iyo sida daraasaadka loo soo daabaco. intaan darsi midkan la mid ahna aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.